cunug yar hooy waa xasuustaa ay ii dhiibtay ayaan la in magaciisa ahaa malaynaya dad qax ayaa ka tagay marka isaaqeedkaas ahayn cunuga markuu xanuunsanaa waa laga tagay hooy ay dhid maanta waxay tir xambaari cunugan cunug yar ah mulqa waa xanuunsanaa marka waa xambaari jiray say uga tagan dadka lahaa waa baawur iyo waxa lagu buuxay marka waana xanuunsaday marka sidii uga tageen waxay isdhaan hadana waa idin soo noqon doonaa meesha dadka degan waa la yaqaan Salabaan caada deganaa marka cunugii ana leedii ana marka xambaari jiray walaalkay Bashiir sida mid yar oo geeraan gacanta hay jiray kana ii soo labay waa xambaarsanaa jiray waa horta waa dhibsi jiray waxaan jiray waa cunuga lagu gudbaa ana xambaarsan oo iska wana xanuunsanaa cunugu waxa korkay ku meedayaan loo dhintay ana xambaarsan السلام عليكم خياري كلنتو wanaagsan halkani waa Hanolaato aniguna waa Yaan la Xuseen Cabdi waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysigan ka qaaday wariye Xanaan Shidane oo kamid ah wariyaasha ka shaqeeya warbaahinta Soomaalida Xanaan waxay nala wadaagaysay wixii ay iyadu soo joogtay oo ay marqaatiga ka ahayd kuwaasi oo qayb ka ah nolosheeda isla markaana wali ay xusuusato waxyaabihii dhacay barnaamijyada Hanolaato ka baxo dhamaantoodba waa wacyigelin waana waxyaabo ku saabsan in xal loo helo nolosha Soomaalida si aan mar dambe u dhicin in ubad Soomaaliyeed ay arkaan ciidan dawladeed oo dadkooda dilaya ama naftooda qatar ku ah arrimahaasi waa arrimo ku xiran hadba sida Soomaalidu ay dhab uga tahay inay dhistaan dawlad hufan oo ilaalin karta nabadgelyadooda isla markaana ay aamini karaan oo ay ku kalsoonaan karaan qaybtan labaad ee barnaamijka waxay noo joogtay Xanaan oo meel baadiye ah nolosheedii halkaasi ka bilaabatay markii ay ka qaxday Cadaado halkaasina ay kula noolayd dadkii magaalada ka baxay waxaana ay noqotay qof baadiyaha ku nool waxaan sameyn jirnay horta family aan u tagnay oo abtiyaashay u badnaa aan la noola jirnay marka hooy waxay sameyn jirtay magaalada soo ay jirtay waxay noo soo raay jirtay ay noo keento xoolna way jireen oo abahay lo uu ka dhintay waa jirtay oo adeeryaashay baadiyaha ku hayeen markii hore waalahay kale iga weyn aniga hal wiil bas u yareen oo dadka markaas saqiirka ah waa afar camal ahayn xoolihii marka adeeryaal noo hayay adeeryaashii iyo abtiyaashii aan marka u dhaxdhaxaynay laakiin still hooy magaalada noo soo jirtay wax kay noo soo qaraabay jirtay abtiyaasha iyo waxaas maadaama aan ogoonna iska ahayn oo aanan caawimaad badan aan ka helin dhankay hadii loo fiirsho aan haysanba magaaladii aan deganayna ka soo baxnay meeshaan iska joogno walaal noloshaas horta waa fiicnayd oo anigu xabadiina meesha ugu dambeysay dhiiggiina maana arkin ayaa la wana ka soo kala dhaafay waxaan xasuustaa nin hilibkiisu jinkad ku dhaganaa madaxiisa bisa marka la aqoonay hilibkiisa kan inta go'o marka jinkad saarna oo hilibkiisa iyo jinkada ku dhaganaa waa intii aad magaalada joogtay intii magaalada joognaa soo arkay ninkaas markasto aan guri jinkada hadda marka Soomaaliya tago jinkadaha marka arko ninkii wajigiisa iyo hilibkiisa isku kaysa wara inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kaas aad u xasuustaa marka noloshii baadiyaha ku bilaabtay baadiyaha iskaga noolayn ugu yaraan waad nabad gashay waa nabad galay horto ma cadow iyo colaad midna ma qabto cadowna ma maqal colaadna ma arag dhulkuna doog iska ahaayo barwaaqa iska jirtay meeshaan iskaga noolayn ayaan adigu markii dambe waxaan ku soo noqonnay magaaladii oo nabad noqotay aan soo noqonnay markaan ayaan badan ku soo noolnay baadiyaha magaalada markaan nimid waxaa dhacay dagaalkii weynaa oo muxuu ahay oo Soomaaliya oo dhan saameeyo 91kii ahaa dawladii la riday dadkii marka waxaa isbedelay hadalkii ahaa waa cadowgii waa isku bedelay qabiil la magacaabi jiray markaas qabiil hebel la dhigi jiray dagaal qabiil uu noqday marka magaaladii markii dadkii soo qaxaya xamar ka soo qaxay magaalada nugu yimid marka dagaal qabiil marka hore waa jiray dagaalka qabiilada qaar dawlad ahaa dawlad ahaa marka cadow waa la dhigi jiray marka dawladda meesha ka baxday cadow marka dawladda loo arkay marka saas isdhaa cadowgii because nimanka tuutaa wata cadow ahaa cadow marka meesha waa ka baxay marka bala imaad marka qabiil caadi ah la noqday dadka marka soo qaxaya magaalada yimid magaalada waxay noqotay magaalo shidan noqoto dadkii soo qaxaya yimid qaxaas waa xasuustaa dadkii shalay cadowga ahaa qaxan waa ku jireen Cadaado ku soo qaxaya waxay ka imaan jireen marka waxay soo doon jireen adeeg ay cadowga noo dhaweed cadowga laga imaan jiray magaalada wax laga qaadi jiray marka isdhexgalka dhinacaan waa ka jira saameyntii weynada oo dhinacaasna waa socotaayo dawladda iyo risitaankeeda iyo qabiiladii xagga qabiil ahaantii xagga marka magaalada nabada noo noqotay marka qabiilku waa xali karaan fidnadu dawladda ay ahayd marka sartiyeedu dawladda ay because qabiilkan noo dhow anaga oo imaan haya shalku soo duulay iga ahayn maanta magaaladii siliduug xil dhigi jira siliduuga u bixiyeen markaas magaalada siliduuga la dhigi jira macnaheedu maxaa laga wadaa wallahi ma fahmin siliduuga la dhigi jira marka dadku waa dad hela oo dhaqana oo isiqaana oo qabiil kala lamida oo aan caadi ahayn dadkii soo maray waxa ku jira reeqooyiga ku jiray muxuu ahay Puntland dad aha ku jiray oo dhinaca gobolada dhexe sii marayeen oo gaalkacya loo gudbahayay boosasa loo gudbahayay Hargeysa loo gudbahayay marka kuwan qabiil ma ahayn marka
dad wada socdo tiradii ka batay ahaan meesha waxaa ka baxay marka dowladdii bis aad shalay ahayd cadowga dowladda bis meesha ka baxay ee dadkan kala reeq qabiil hebel inta maraayay dad xataa annaga waxaan kaga tagay inay isaaq cid ahayd oo famil ahayd meeshii nolol kaga tagay cunug yar hooy waa xasuustaa ay ii dhiibtay ayaan la in magaciisi ahaa malaynaya dad qax ayaa ka tagay marka isaaqeedkaas ahayn cunuga markuu xanuunsanaa waa laga tagay hooyo ay ritmaanda waxay tiri xambaari cunugan cunug yar waay cunug yar oo mulqa waan xanuunsanaa marka waa xambaari jiray say uga tageen dadkii lahaa waa baawur iyo waxaa lagu buuxay marka waana xanuunsaday marka sidii uga tageen waxay dhahaan haddana waa idin soo noqon doonaa meesha dadka degan waa la yaqaan salawaan caada deganaa marka cunugii anaa la ii dhiibay anaa marka xambaari jiray walaalkay bashiir sida mid yar oo geeraan gacanta hay jiray kana ii soo labay waa xambaarsanaa jiray waa horta waa dhibsan jiray waxaan jiray waa cunugan lagu dhibay ana xambaarsanaa iska wana xanuunsanaa cunug waxa soo korkay ku meedayaan loo dhintay anoo xambaarsan uu meeday marka xataa marka reerka dadkii ka tageen waxay islaayeen kanama noolaanayo markii saas aan isdhahay marka xataa waxa xasuustaa dhimashadiisa cunugaas magaaladan ka baxna waxa u baxna ma qaane duurkan oo aadna meel ah markaan baxaynay cunugii oo anoo xambaarsanaan la baxay markaan dhex sii marayno uu dhintay cunuga korkay ku dhintay marka cunuga adayg u noqdo adayg korkay ku noqdo waa cuslaaday adeygna waa noqdo hooy cunugan ma qaadi karis maandhay soo qaad ilada waa cunug yarka maandhay soo qaad waa mar dhawaan meeshkaas markaan tagnaa mandhaa laga qaada marka dambe markaan reedarkii xaafadii aan tagno waxaan dhahay cunuga laga dejiyo cunuga culays waa qaadi waana yara haddii laga dejiyo cunuga meyd waayba marka waa dhintay umale ma ilaa hata cidis inay warka hayaan umale ma inay warka meelaa lagu duugay xataa qofkii ugu hore la duugay arka cunugaas oo say ku ogaateen magaciisana ayaan la yidhaah aabihiisa noo sheegay iyo hooyadiis markay tagayeen ha aydan wiilka ayaan la dhamaandhe marin wuxuu siyaada noo hay waa kuu soo noqon doona maalin adduunkurkiisa marka laba cid ay ahaayeen cid ilmo gabdho weyn haysteen oo gabdhihii hooyada cibaada la dhihi jiray waa xasuustaa faadumo xaliimo gabdhahaasi ahaayeen kuwaas marka waa weynaadeen waa istabari kareen guriga hooya dhinaceena jingada laga siiyey meeshaas na deganaayeen laakiin cunugan dadkiis waa ka tageen dadkii askari un aabiis ahaa malaynaa saas inuu ahaayeen jecla marka qiyaamaa dhacay marka cunugaas saaqu ahaa caada looga tegay waa la kala cararayaa qof daryeelay waa dareemi kartaa xanuunka ay leegtahay waalid carruurta ka tagay cunugaas yarkaa ilaa hadda ciddiisa inay ogyihin xataa umaleymaa ilaa hadda inay ogyihin xaaladda lagu sugnaa ku tusaysaa xanuun ay ahayd xaaladda lagu sugnaa ku tusaysaa marka halkaasaa marka magaalada asaasay noqotay asaasay magaalada noqotay dadkii isdhex galay magaalo waa la wada degay waa la wada fiicnaanay kadib anaga xamaraan nala soo wada marka xoogaa aniga waa weynaaday waa aqliyaystay teenage aan noqday xamaraan la keenay marka aniga xamarna ma rabin laakiin waa lagu soo qasbay inay imaado oo familka hooya waxay tiri waa xamaraan aadayna u guurayna hana dhahay xamar ayadii oo naga dhimatay hooya ay jirtay marka saasa xamar ugu soo guurnay marka xamar nimid anigu anoo yar oo weli teenage ah nin familka iyo xaalado si qorshaysan adigu aan isguursan ninkii marka goorma xamar timaaday xamar waxay amaanay labada waxay ahayd amalna xilliga amaanay 97 98 meelahaas labadii kun waa la iga waday oo ninaan ka guursaday waxaa la geeyey waxaa ninka guursaday hiiraan muxuu ahay buulabardo guurkaas anigu guur ma dhihi karo marka adigu 14 jir meelahaas ahaa waa yaraa ma aanan qaangaar fula maan ahayn reerkaa kaasoo doontay waa guursaday reerkiya waa la heshiiyey walaashii iga weynaa joogtay oo iyadana meesha marka hore ugu qaban jiray heshiiskaasaa dhex mara hoosooseeda aduu waa qabo qoorta geli sidii aan ku guursaday marka laakiin walaashii iga weynaa aad arrintaas hawlaheeda iyo awoodeeda iyo wixeeda dhan dhamaystay see ku yimid guurkaas taar aa lagu hadli jiray oo wada hadalku taar u ahaa marka way adkeydba in qof kale la xiriiro xataa hooyo iyo waalihii waxda lagu xiriiro wiilasha la dhashay inay ogaaneen kale xataa 100% sure ma ahayn laakiin walaashay waxay tiri hooyo iyo aabi hooyo waa la hadlay walaalaha wiilashii waa okay yihiin asaga cidiis waxay dhacay cidaad annaka la hadalnay saas wax lagu dhameeyay see ku yimid guurkaas marka see isku hesheen ninka waxaan isku helnay walaashay aan la joog jirin oo u tagay oo meesha qabay walaashay waxay deganeed buulbardo marka ayadaa iga soo horeysay meesha iyadana waayaheeda hore meesha ninka ku guursatay ilmeyna u dhashay marka sidii walaa hadda xataa xusuustiis maalinkii meherkiisa u dhac ma xusuusto meherka markuu dhacay iyo qaab u ah ma xusuusto waxaan xusuustaa le inaan guri cariisha aan la isoo dejiyey oo aan guri cariisha ku noolaayo buulabarta ku noolaa familkiisa oo odagayga familkiisa ay meesha laga deganaayeen oo dumaashigay iyo dumaashida iyo dohday iyo sodogay hadda gabadhayda iyo wigeed allah naxariisto uu dhintay
marka saas aan guri kusoo galay gurigaas in badan aroos fiican lagu dhigay maya waxba lama dhigin aroosna ma la ii dhigin maba arag xataa ma xusuusto xataa dhar cusub iyo wax ma la ii gelin gurigaas la soo galay meesha la igu guursaday nina ku qaban wala bas meeshii aan iska joogay ayaan noloshaas marka nolol gurigaan ku agbisay ah guri gudiis bas see lagu galbiyey marka guriga see lagu gey walaashay ilmeed hay gurigaan ku dheganaan ku hayay marka oo cido aan islahay ahayn marka gurigaan ku dhegan maadaama aan lahaa oo walaashayna wixii dhan iga dhaadhicisay tiri ninkan lagu guursaday familkii waa kana ay hooyana waa la hadlay adeer cidii wiilkan dhahday waa lagu bixiyo nina cidii anaga dhamayna adeer gabadheena yaa taa meerkiin waa dhac maanta u dhacay sidii marka guriga lagu soo marka lagu guurinaya marka bulburta joogta walaasha la noosha walaasha la noolaa meeshii marka la keenay gurigii aan soo galay mar baatiga aan guriga ku soo galan ku joog waa ninka guursanaya hore isku taqeenay wax badan maya laakiin waa arki jiray waa heshiiseen maya aniga isaga hadal wada hadal ma dhex marin asla iska soo doonto marka isaga walaasha kula gaclood walaasha soo gaclood isaga walaasha soo heshiis ayagu isaga walaasha iyo familka kor aan ka soo heshiis marka aniga hooyaday aan horta ma joogto meesha oo iima sheegi karto wixii meesha ka dhacay laakiin in wax la soo dhameeyay tahay oo familkii wixii isku geeyeen u aha kadib marka hooyo la hadlay wixii maandi waa lagu guursaday hadda waa ninkaas ku qabo oo xaaskiisa taa sidii marka meesha ku joogay ninka marka xiday ahaayeen walaashay xid ahaayeen ha dumaashigeedu aha guriga lagu geeyay isaas lagu geeyay albaabkaas qabal liisi ilaa hadda ayaan law familkeygu ama walaalahayga ama ehelkeyga ma oga noloshaas wixii meeshaas ka soo maxaa dhacay gabar hooyadeed horta kibir kusoo korsan ahayo yaraan ku xigeen oo la koolkoolinayo aan aabana arag adeerna arag abtina arag laakiin hooyo ay soo korsataa ah gabar hooyo ah aan walaashayaan raacay oo halkaas i geysay ma aanan bixi lahayn oo aniga choice-kayga ma ahayn inaan halkaas aado ninkaas la ii guriyey oo ama isguursanay gurigiisa u joogay nin Soomaali ama dhaqankeeda leh ama diinteeda leh ama naxariista nimanka Soomaaliyeed leh ma ahayn maxaa ku tiri waxaan ku iri anigu reer gobol horta iska ahaa oo dadku markay reer magaalo yihiin oo magaalo joogaan dabcan Muqdisho joogaan oo asxaabka la sheekaystaan oo friend yeeshaan oo saaxiib yeeshaan wax badan ogaadaan ana wax badan ma aan ogeyn nolosha naxwa kama aan ogeyn guurka micnihiisana ma aan ogeyn iyo wax guurku yahay waa iska naxariis badnaa oo walaalahayga ilmaha la kori jiray walaalahayga aan waxaan u ahaa gabar yar oo jecel yihiin marka gurigaasaan ku xirnaa jiray banaan ma aadi jirin albaabka ma bixi jirin qof ma la sheekaysan jirin saaxiibna ma lahayn wuxuu u samayn jiray marka asaga weygiisa ama jidkiisa waxaan ahayn jidaan ahayn waxba kuma fuli jirin maxaa ka wadaa waxaan ka wadaa banaanka ma aadi karo adeeg banaanka uma doonan karo wadaadu ahaa miya wadaadu ahaa wadaadna ma ahayno wadaadada anigu waxaan u aqoon jiray dadka mujaahidka iyo quraamada aqriya iyo oo muxuu ahay wadaad dugsiga macalinka yaa la dhihi jiray asaga dugsi macalinna ma ahayn farmashiyistu ahaa jiray farmashiyo ay lahaa jirin familka farmashiyaashu ka shaqay jiray marka ma diidaa in adeeg doonatid oo gurigaaga aad maamulato waa fahmi waaye horta qabiil ahaan waa lagu xagli jiray waxaa la dhihi jiray naagtan habar gidir waaye deegaanka marka ayagu maysan ayagu waxay ahaayeen gaal jecel waaye bulubardana waxaa u badan xawaadla u badnaa markaas dadka marka xawaadlaha oo meesha degan ma aanan dad badan kama aqoon walaasheen ilma mataanay ahayn gurigan ilmaha u dhexeey jiray oo ilmahaas yarkaan hayn jiray oo xambaarsanaan jiray banaanka dadka jira maan aqoon marka qofna maan aqoon laakiin waxaan ogaa anigu inaan horta cadaada ka imid oo cadaada ka imid qabiil ahaana sale baan ahay laakiin hawiyaha iyo muxuu ahay iyo habar gidirtaas iyo ma aanan fahansanin xoog iyo xawaadlahan hadda aan imid iyo gaal jecelkaani waxay fahan weyn kamaan haysan aan iska teenage waa ahay cadaadihii laga soo wadan xamra la geeyay xamra markii waa laga celshay bulbardaan jooga marka noloshaydii oon soo maro horena ma fiicnayn oo dagaal iyo dil iyo waxaan ku soo maray dhiig tan hadda aan imidna oo aan ku qaadan lahaa dhallinyarnimadeeda ma aan helno guur iyo xanimaad aan ku helo marka gurigaas isaga wuxuu igu hayn jiray ilaa hadda ma ogi laakiin dabcan albaabka inaan ka baxo muuse iyo ogolayn
familka dadka degan meesha way caan jireen walaashay ilmeedu ay gabadatay ani bisa meesha ku haray dadku markii way caan jireen qabiil habla naag habar gidirstaan lagu cajir waxa diris markii habar gidistaan balaayo iyad maxay taa maanta kaliya lagu xagla dadkana meesha laga jeclay ha maxaa kaliya walaashaas uma degan magaalada waa guurto walaasha xamar soo ilmeedu soo wadatay marka adaa ku haray ana kaliya ku haray hatta inaan raac war weydiitay guriga dhaqay ku ma bixi kartid ugu tir reerkaaga eragasay ugu tir guriga dhaqay ugu tir waay marka gurigaad ku xiran tahay meel uma baxay alaakan ku jiraan bal iga sheekay guriga say kugu xiran ma albaabka lagu xiraa guriga albaabka xiran furaha asaga qaadanaya qolku hurdada masay albaabka qol waaye iyo barsid meel dhex ah marka asaga barsid uu kor ka xiraa guriguna cariish waaye guryaha oo la mariyo geedaha inta la dhiso shamiitada ma ahayn waxaa la mari jiray miyaa ma aqaan xarka xoolaha miyaa cariish waa la yaqaanaa cariish miyaa bas anuu jingada ma naqaan cariishka ma hiiraan laga yaqaan waa jingad waay meeshii ilaahay amarkiis ku jira daaqad bis shabaq oo leeyahay sariir iyo chief no ii dhigay fadhi no guriga yaala oo barantadas fadhiga yaala chiefkan inta yaala marka chiefkaas fadhigaas u dhaxeeya alaakaas uu xiran yahay lugtana waxa iga xiran ma horta inta lugta laga xiran waxaan dhihi jiray waaya muxuu ahaye gurigaan ugu jiraa wuu idili jiray marka haddaanba afkayga hadalba ka soo baxo wax hadal nuucba ah oo la tumi jiray marka waxaan dhihi jiray calashaan maxay macnaha ku soo korinaya waxaan dhihi jiray waaya idile soo wuxuu dhihi jiray dhaqankeena anaga saas waaye oo ah calashaan naag in la dilo maahan wax kale dhaqankeena maaha marka waxaan dhihi jiray naag ma gabar ahayn marka naagtan waxaan umaleeyaa naag ilmo dhasho hooyaa in la diro muxuu ka wadaa marka markaan dhaho maxaa ada waxba halayna la iska hadal afkayga ma ka soo bixi karo banaanka ma u bixi kara ma dhihi karo adeeg noocaas aara ma dhihi karo isaga adeeg iso gadaa cuntada marka familka la isku darnaa la isku karnaa alaaka la iso dhigaasi wax waa la camal marka waa la murmi jiro ku qaqay jiro marka waxaan dhihi jiray maxaa saa igala markaas marka wuxuu ii sameeyay inuu xarig lugta iga xiro hooyis hataa ilaa hadda way noosha maysa ogeyn familkiisa asaga familkiisa maysa ogeyn markaas la qof weyn soo xarig kugu xiraa laakiin xarig waa iska furi kartaa maya waxa silik katiinad ha oo qoful leh katiinad qoful lugta iga xiraa marka muxuu kugu xiraa sariirta darbiga wuxuu igula xiraa sariirta lugteeda hoose waa ka furi kartaa soo hadda sariirta waa qunful ku dhigan waay waa labada qunful ku dhigan sariirta ta kor qaada laakiin katiinada soo baxaysa maya waa sariir culus ay ahayn oo albaaxa marka moogi ma inaan min daaqligaas aan leen kor qaada laakiin sariirta wax ilaa ma culus ma jiidin karin markaan jiido ima raacayso marka lugtaas meeshaas ku xirnahay gurigaas joogo markuu iyo suuro marka yeela waa jirada waa cunto alaaka la soo dhiga alaakaas ka soo qabsana maxaad reerka uga aamusan tahay oo dhibka u sheegan weyse maya reer magaalada habar girtay oo laga horkeenaa marka haddaan la hadlo odaga allah naxariisto uu dhintay ayaan dhexeen dhintaa maqlay odaga ii roonaan jiray wuxuu jiray gabadhaan silac ka dhaafa allah naxariisto uu dhintay gabadhaan ma silac ka dhaaftiin se hooyis marka qaylin jirtay dhishistay wax laga dhaafan male marka aniga dilkan maana soo aqoon dil hooyada ima dili jirin weligii hooyada ma xasuustin inay dishay markaan joogay caado qofna ima dili jirin oo xataa ilmaha teenage-kan la dagaalo ma aan la dil ima dili jirin marka dil aniga guurkii iga bilowdaba oo magaca guuroona ugu dilahay maahan dabcan hadduus i qabilaan ima dillahayn marka guriga ku xiran tahay noloshaas noqotay nolosha halkaas iga bilowday musqushu aada marka musqush marka aada habeen markuu imaado musqush geena markuu maqribkii imaado salaada u imaado wada ama duhurkii markuu salaada u imaado wada ama duhurkii markuu salaada u imaado wada cabaaro seexana haddana markaas wada musqush geena haddana hadhatiis soo kale guri kale iga xira silgeena ku xirnaa marka uu shaqeeyaa farmashiya u furan farmashiisto ah wana weyn oo dhaqtar markaas aniga weyn farmashiisto ah oo aniga markaas iga weyn aha marka cid igama neefi jirin daaqad marka inta istaago sida wax baan camal daaqada ka garaac jira meesha daaqada sa garaac jiray gabar marka oo ciidaha meesha degan waxa wada ah markaas la soo aroosay aad daaqada iga arki jirtay maalinta way tii marka suuqa caana ka doonayso ay meesha u aragtaa markaas maalinta daaqada maxaa inta ka qabanaysaa isan dhabaa meeshaan degana ma jirantay ugu tirmayaan dhah ma soo baxdi aduu waqti ugu qaatina u sheego gabadha inaan meesha ugu xanibanahay yaa tay ugu tiri waxaan dhahay habar gidir ah marka habar gidirtii maadaama ayagu habar gidir ka badiyaan habar gidirto dhan aan jimlo ku qaato marka habar gidir ahaan dhah laakiin anigu waxaan isku haystay inaan asalabaan ahay bas meeshii gabadhii markasta way la soo martaa way islaantaa habeenka odageedu xaas kale u lahaaya markuu habeenka dhexo maqribkii maray isoo imaan jirtay waxay ii keeni jirtay adeegay meesha waxay yar dhigisi jirtay cambe iyo liin dhanaan iyo ay igisiiso xiriis dhishisa cidda beerta lahaan hoo webiga geeskiis ku taalo meeshasan deganaha ani
marka magaalada waa ka fogtihiin dhanka beeraha hoosaa jirtiin dhanka duura xignaa magaalada xog mu kala qaan laakiin dhankeena beeraha nagu dhow oo marka webiyaasha soo furtaan iyo ama roob do webi waa nagu imaan jiray somehow biyaa imaan jiray ama lana webiyaasha ahayn beerana meesha waa ka buuxin marka gabadhaas meeshaasaan iska barnay magaceeda deeqaal dhihi jiray ma oga hadda meel ku dambeysay awish inaan ama arki lahaa ama aan ogaa lahaa maxay ku caawinaysa marka deeq waxay caawin jirtay way artay inaan albaabka hore iyo wax nolol hore jirin laakiin adigu ma sheegin waxba waa u sheeg waqti ugu qaateen usha laka usha waxaan ku gurigaan ku xirnaa lugtaan ka xirnaa mana soo bixi karo nina meesha ugu qabo si wixii cidda meesha daga waa aqaanaha oo gaal jecel waaya tiri waxaan ku yiri wallahi waa gaal jecelkaas laakiin meeshaan joogaan mana ka bixi karo aniguna habar gidida ahaan dhah marka habar gidira wax disha la dhahana asagu dilka ugu badi jiray ana marka waxaan fahmi waayay hadeer marka la fiirsho aan maxaa qabiilka aanu ka dhashay iyo qabiilka soo ka dhashay dilkooda ma arag anaga meel isku dilaan isku soo weeraraan ma arag marka wuxuu dhihi jiray qabiilkaas marka laga habraha ay sheekaysanayaan albaabka waxa la dhihi jiray qabiilada is dileen xawaadle wargidra is shaamaqle abgaaliya wargidra is shaamaqle san ayaga marka gaal jecelka iyo hawla is dileen maqli jirnaan asaga marka wargid wax anu way dili jiray waay mawgi ila hadda aniga xataa awش inuu inta soo fariisto jawaab laha wax badan iga jawaab laha waay ala kul hal mar gabadhii maxay caawu dhiwaysa gabadha meesha ka saar caawa laakiin waxay tiri cidaan ka jecel waayo ana xawaadan ahay laakiin waxay tiri hadda kuma caawin ana ku caawin doon dhijir one day laakiin way tilmaantay waxay cid maqaayad lacag ku taalo habar gidir waay maqaayad ma aqaan meel ku taalo meel maqaayad iga jirto mana bixi kari marka laakiin dhagtan ku haysta halkaas in cid degantaa hadda ku tilmaantay maxaa cid waxay ahaayeen ayaga habar gidir saacad ahaayeen muxuu ahaayay hooyadood waxay ahayd xawaadle marka meeshay bulbar degdeganaayeen oo cid aan ahayd magaceeda iga maqan xataa marka waxay ku leedahay cidaas war u dirso weeraan ku caawiyaan ma ka warhaay because meeshan war ma laga haayo waana walaashay warkayga ma geen magaaladiyo walaashay xataa xoog ima ogaan yan iyada xataa hadda dheen ma ogeen waxa ku haysta ma ha reerkaaga dhaqay dhahda ereyga reerkaaga dhaqa hadda xataa ma jecel qaal reerkaaga dhaqo reerkaaga dhaqay dhahda dib iyo leefba ha reerkaaga dhaqo waxaas ma jecel waxa la isku qaba lama oga war laga ma hayo marka guur ma ahayn wuxuu ahaa kufsi dis loo fiirsho maxaad u leedahay waxaan u leeyahay aboowe naxariis waaye guurku diiniyana ninkaana mas-uulka ah oo markaad xaaskiisa noqotid ninkaana mas-uulkaa noqonaya waa inuu dabaan qaadaa noloshaada oo hadda hataa wadamadan hadda aan joognaa wada shaqayn wada ordayn ma laakiin marka afrika la joogay gabadha marka la guursa reerkii oo ila nooshaa dabaan qaadaya nolosheeda aniga marka waa ku dayacnaa guri waa degan tahay guri waa deganahay maxaa ka halaysnaa nolosha dilkaas maxaa la ii dilaa waa la ii dilaa cunto laguma siimiyaa mise cunto waa la siinaa cuntada daaqada albaabka la soo dhiga ama daaqada sandaqa balkoonka muxuu ahaa barandada aa laga soo dhiibaa qadada iyo quraacda cashada hal jika lagu karnaa hadda ninkaan u xaraysan tahay ninkaan u xaraysanahay cid kale ma aragtaan cid kale ma arkayno sodohday iyidi iyo famil kale meeshaas joogaan barxaddaas galabtii fadhiisanayaan inta kalena guryahooda awlada isugu jiraan waay marka waxaa la dhihi jiray markasta waxay dhihi jireen naagtan habar gidir waay waxaa jirta markaa wargeedta waxay geystay midhaa badan oo adig kale idin laga jaray cudada ku gelisay marka cudada ay gelisay bas ilaa amarkiis waa uraan yeeshay uurka waa ku xanuunsaday cunug yarna waa ku xanuunsaday tacbaana noqday markaa xataa uurka yeeshay muusan iga furin muxuu ahaaye birtiin igama furin dilkan igama dhaafin anoo uur leh marka ma qaylisid ma oysid dadku ma soo baxaan waa qof cidiisa qof ma soo baxaysa guri weyn oo ay deganaayeen filaa wax ku ka neefina male marka waxa leeyahay nin bilaantiis waa dhax galay naagaha waa la dilay dhijireen naagaha ciidas waa naagaha waa la dilay san qal jiray marka naagaha aan naag mihiyaas dhij waxaan naag wilma noqon ilmaad dhalay xumar marka uura yeelatay waa dhashay waa dilkiyaan ku dhalay maxaa dhashay gabaraan dhalay hadda way joogtaa marka ma sha Allah gabaraad dhashay marka ha gabaraan dhalay laakiin alxamdulillah horto hooyanimadaasaan ka faa'iido maahane wax kale kama faa'iidi karin ama guurkaas mana aan jeclaysan muxuu ahaayey noloshaas midaan choose garaystana ma ahayn maxaa gocanaysaa marka waxbaad gocanaysaa xanuunan kaa dareemaya waxaan goconaa ma aanan ahayn in aan dagaalku ku dhasho oo dagaalku soo koro ma ahayn in nin Soomaaliyeed oo aan xaaskiisa ahay ay gacantiisu ay aniga i xanuujisto ma ahayn in aan murug ku noolaado oo aan guri ku xirnaado xayawaan amal ama qof wala amal aan qol ugu xirnaado qof saad u dhashay marka gabadhaas bliga shakee gabadhaas habeen 8 saac inaan dhalay naaga badan ay dhalinay naagii inta iga fariisteen
intii iga fariisteen cunug aadna waa u yaraa oo qalliirna caatana waa ahaa marka maxay u fariisanayaan sabab ma riixi karta ilma ma riixi kartid tabar ma lihid tabar ba lahayn wax fitamiin ma lasii jirin daawooyin oo isii jiray oo qasab ah waxay ahaan daawaas ma aqaan hadda kaniyaal oo isii jiray ma aqaan waxay ahaan daawooyin oo isii jiray mar xataa waxaa jirtay aan 2 bir camal aan suuxsanaa oo uusan asna war iga haynin cid kalena is war iga haynin oo aan keligay iska murugaaday markaan is ogaaday inaan xaaladaas saas camal aan dhiig baxay ama aan xanuunsaday oo dabcan aan isleeyahay anaga xilligii waxay ahayd isku kaa horreysay oo aan muxuu ahay aan xaas dabcan isagoo iga dhiganayay laakiin aan xaas ahayn aan ahaa cunug yar oo agoon oo saqiir oo aan qaan gaarin oo nolol fiican oo aabba ag joogo walaalkii dhabarka usoo salaaxaya aan kusoo korinay qax iyo dagaal kusoo kortay marka cid kaa war haysa ma jirto oo dib u timid oo ogaatay saa u nooshahay walaal iyo waalid may abti iyo adeer adeeraashay waa iska dhinteen hooyadeyna xamar ay jirtay ilma joogin hadday xamar aan joogi lahaa waxaan qabaa ama hooyo ag joogi lahaa saan waa dhaami lahaa silacaan ma dhaceen waay islaamii marka caloosha kaaga fariisteen gabadha saas kaaga umuliyeen sidii iga umuliyeen naagtii waa xasuustaa waxaan ku dhahay eedooy habararey haddii cunugta uu iga soo baxdo ha igu celin inaa calashaan muxuu ahaye how do I say waa i jeexjeexda camal marka waxaan ku yidhi ha tolin again ha igu celin ii dhaaf sidaa iska ahaado marka waxay areeyada xasuusta waxaan xasuusta inaan dhahday ninaa u nooshahay oo marka naa gabdho dhalaan waa la sameeyaa ninkana saan loo yeelaa marka mana jeclaysan dibaa lagu talaa markii aad gasho qasabka camada ahaa markaas waxaan rabay inay ii dhaafto I don't even know حتى even consequences ما كل ضاف لك محارب إني ضافته waxay tiri habaryar saas lama yeelo ninka waraalka ma ninka loo yeela tiba lagu taltaa marka ninkuna ninkii waay oo xanuunka ama silaaca imarsinay marka ma aan jeclaysan laakiin choice ma lahayn kadib anoo sidii iska umul oo dharka cunta iska dhaqdo lugtiin sidii uga xirnaa cunugtii iska haysto waxaa dhacday inaa markii dambe banaanka la ii bixiyo oo walaashay inta imaad walaashay gadaalka imaatay marka walaashay imaad waa horta waa la iga furay marka walaashay imaad birti iga furay waxaan dhahay walaashay waa ku raacaan dhahay waxay tiri kuma wadaay reerkaaga joogay waxay dhahday abaaya waxay tiri marka samaha waa xasuustaa walaashay waxay tiri waa abaaya xamar noo raac naan wadno balbal xoogaa waa ku aqrisay muusa ka yeelin marka wuu ka diidiiday markii dambe هذا سيد جديد معه وحوجا ولا شيء نربط إنه يوضح السجن وسربين قصو كبح ونحمر كل ما سمها وما شيء ولا شيء عدب كويس ولا شيء ولا شيء لكن حوج وحبر وما شيء جنو قف كستو حاول دري من ده هاي ناقته رقم كان سنة لو رقمه وقبل نلوش بين إنسان نلوش بين إنسان تاو ننكد نندا جرستيد ودل كان أكون ولا نس ناقنا أو نقولنيس أنت وكرنيس أنت حتى حاسة مركان كأكرية وحيرة وسوق فيلم أنت كانوا حدي تري كره وأكرنا مالا ودقة معوني تري مركان مركو يمان سيو وما حس تري إنه وحير ربو أصل سعنا ما مدين قيب سنتو ما وحيرو كينا وحيران كري أسقى سينا يمدها محمد أنت وحام صار أنت وحمد أنت ما يدها أنت ما يسنا ألعاب تسقاط لها ألعاب تسقاط لها إلا عنا ما جرتو إلا عنا ما جرتو هاي أسقى لا بحيسة مش أسرع بحيسة عنا أنا عني حتى ما أنا أبليف ناقة ها والي جرس لكن أجونا ها ولي عنق صغيرة. هذا كريه نفع كويس محا عنويس. ما ده ها قولي عدة مسكري. أنا وحاس ده بنك مركو مع وضعنا أما نك بلاك بقى أما وحوس ريب دونا. مركو. نول في عن مهن. مركو حما. بقول تو مقالة في عن ضد في عن دقيقة بنتي. هذا لو حما قصاص إنك هو قبضت. ما هيران أنا كحسوس إلا ده. حسوس أنا وناكسين إلا ده. xusuustaasna waxay ugu dirtay aan dhihi karaa nimanka ragga Soomaaliyeed intooda badan waay marka gabadhii aad umushay gabadhii aan dhalay marka waa saad ku baxday marka goormaad waan ka qaadatay inaan fakado one day waa rabay in meeshan noloshaan ka baxo oo horta hal mar noloshaan ka baxo oo aan ka tago marka waa si xanuun badan uga baxay oo kaarta ah oo
muxuu ahay aan ku fakeray inaan jid dheer u maro oo aan u silco oo aan nafteed u bimeeyo inuu umulaho naasacaan iga socdaan marka maxaa samaysay Bulbert horta gabadhii daaqadda igala hadli jirtay oo meesha iga sheekay jirtay waxay ii sheegtay ayadoo qabiilkeeda waa ogaa oo xawaadna ahay dhahday marka waxaan ku dhihi jiray meesha inaan mar one day ka baxa waa rabaa maadaama nolosheeda ogeyd albaabka dambe oo ay sheegtay oo ahaa ciddii habargirta ahayd oo aan xawaadlaha iyo habargirta ahaydna way ii tilmaantay marka waxaa maqli jireen marka inaan ugu sheekaysanayaan meeshan waxaa dego oo joogo baabuurta u socoto gaalkacyo iyo dhusmareeb aduu guraceel dhusmareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo amaro oo habargirta meeshaas ku hakadaan marka habargirta meeshaan uga dhargaane xamar kumaana aqoon meeshaan uga dhargamo in habargirta tiro badan mindha meelaha socday meesha ku maqashaa waay marka baabuurtooda amarto magaalada ayaa lagu sheegay ala ii sheegay gabadha ku sheegayso gabadha ii sheegta ma naagaha ka sheekaysanayo oo cidda u imaanayo duqda gurigeeda waay ka sheekaynaa marka waa baxnay waxaan ku fikiray inaan baxo one day baxo cunugtayda yar waa xasuustaa boolbira inta u qubay boolbira inta ugu shushbay boolbira cado ilmaha inta loo mari jiray dirac baa cambur yar baatiya u geliyay ayeeyday aan hoos ka geliyay ayeedeed ha abootadeed maal dhaha odayga ayeediisa aan baalka geliyay marka ana waa marka maxaa ka wadaa ayeeyda cunugtayda abootadeed ayeedeed hooyada sii dhashay ha marka qoysku waaba abootaba noolba aboota joogto abootadaas way ii fiicnaa jirtay abootada iyo waxa ii fiicnaa jiray iyo aabaha marka aabihii iyo hooyadii ayeeydii iyo abootadii iyo gurigooda nool waay intaas wax ku arxama ma jiro intaas qofna ma arxama laha odaga wuxuu jiray gabadha masaakiinta iska daaya marka odaga duqdaa ku qayli jirtay ayeeyada oo kaleetana waxay dhihi jirtay gabadha masaakiinta ma iska dhaaftiin marka meesha waxa ku nool ugu yaraan 5 generation waxa waaye abooto ayeeyo labadii hooyo iyo aabbo oo adi gabadha awow u noqonayo aabaheed iyada ku nool waa 5 generation waa badan yihiin waay anigu kaliya marka koyta ka ah meesha oo qofka la moosa ana waa kaliya gabadha marka agdhigay asaga marka ilaa markaas gabadheed markaas waxay dhalineed beriyo adigu 15 beri camal aan ku qiyaasi karo waa ka soo tagay habeen barkii marka 9 saac markay tahay aan ka dhuuman albaabka baxa jaanis oo ku hel albaab furo weyn oo hadda maarad furaha master key la dhamaa meelaha oo isku xiran tirada badan camal guriga laha furihii aan ku furtay waa baxay xageedaysa meeshii oo baabuurta oo dhinaca soo istaageen dhahay waxaa joogo magaalada ka baxday magaalada dhexdeeda marka tilmaantii gabadhii daaqada gurisan xigtay tilmaanta kale halkaas xigtaa laamigu naga somehow laamig wax noo ahna naga ma dheero meel dhow mara bas meeshii aaday waxaan u tag baabuur kor ka daboolan oo xiran oo kor ka xiran waa kaasoo kala dhaafay markayga hore xataa oo aan noloshaas ku jir dhowr maraan waxaan damay inaan aado fakado oo aan meeshaas dadkaas aado marka wuu u fahmo markaas ugu fahmo oo xarigana igu sii badan jiray dilkuna ii dheeray jiray ii badi jiray marka ugu fahmo marka cidda kaleeto ilaaha nafta gooyay family kaleeto cidna ma ogeen wixii noloshaas aan gurigaas ku dhex jiray marka inaad fakanayso uu dareemay ninkan fashaki ku jiray cabsi uu ka qabay inaad ka cararto marka subaxii subaxii markaas isagoo aay jiray salaas wuxuu aadaa waa salaad soo tukana anigu anoo suuxsan ugu iga tagaa marka meeshaas iska qabanayso ma og marka waa fakaday cid waxaan u tagay baabuurta sharacneydaan helay marka naasi caana iga socdo oo weli umulo ahay 2 mar oo yaro bisaan dharba ma haystaba labadoo cala meelaha talaan iska gashtay 10 cishaa dhalantaa 15 beri aan dhalanahay waa baxay waxaan u tagay baabuurtii aan u tagay baabuurta laftirkeeda haddeer marka noloshaan aan ognahay is riski inaad baabuur dadoo meel iska talaa u tagto iskala hadasho marka baabuurtii wiilkii karshooyga meesha fadhiya isaga cunaya arkay waxaan dhahay buu waxaan rabaa inaan aado baabuurtan caado ma soo tacaado ma sii gey kartiin wuxuu yiri caado ma socno baa xamaraan u socno anaga marka waxaan ku yiri waa maxaa kugu dhaco dhah waa aadna u baryarayo cunug yaro daruufaysanayo nafaqo iyo wax ku soo korin marka waa isku sheeg waxaan ku yiri cidaas abar gidra ahay waxaan rabaa ku dhahay inaan baxo oo caado aado wuxuu yiri caado ma san xamar u socno hadaa xamar waxaan dhahay shirkul ma gey kartiin shirkala taqaanaadii shirkala aan marka shirkala waxaan maqli jiray cid marka baxda halkaas ay joogaan oo ma qofkii taga halkaas ka maqli jiray maqalkii ugu jiray markii aan xamar joogna xataa waxa la jiray shirkala adeerkii cid aan ma adeerkii waa degnaa marka waxay ninka wuu waday niman kale qayila u geeyay
وحيجي أن بتروني بترونيga aniga iska gaari ها يويل كي ضرب القيلة ويجي أدر محاك ودعي ودها محنا أدر محارب أنا عادي يجيسين مركو عدا عادي أدر ما سعنا حاجة أو سعنا محاك ودعي وده محنا ماشي أنا دقنا بقوله برد مال بعد بتولا شك تولا زكي بدنا وبقى قبل أن كيمت مركو حنا بعد أنا ماشي أدر وحول أدر ما سعنا هذا حمر لك وكي كرد حمر يجيسين أدر ماشي من الشركة المجيء كرتين وغير maxaa u sheegtay buu aqalna ka timid maxaa u sheegtay buu maxaan ka aqalna cabsaday inay dhahaan inay cabsadaan hadda magaalada ka timid inaa ha electrical inay cabsadaan waay oo ninku xataa dadka deegaanka degan noqon kara xawaadu noqon kara aan marka waxay dhaheen aan marka isku sheegay midaa wuxuu dhahay yaa taha marka waxaan dhahay barkida ka tuulaha salabaan aan dhahay marka ninka baawarka u rareeyay salabaan aha oo badrooniga ninka isoo waday marka baawarka shirka laga saar wala isoo waday waxaan lacagna iga qaab kasma bahaysto lacag laba calalo aan gashanahay bis waxaan ahayn ma haysto sidii ugu soo waday wuxuu i keenay waxa la keenay ku wareestiyaa ku dhalay kuma dhihin ninka maadaama ina ayaa tooda ina habal ina shidan guud ahaan dhah ina ayagu waa midda waa ay qooday laakiin adu ina ayaga sheegtay uu soo wada xamar la keenay jidka cunto iga soo siiyay jallaqsi waxa xasuusta soo marnay cunto iga soo siiyay xamraan maanaysa aan socnay dan waxa shirku la leeyahay وكشير لو جرو أدرك أقان وآدم كدب سيدي أم حنكو ماذا حافظين meeshaan ay ka bilaaban doontaa adiga oo aan ku talagelin ayaad ii sheegtay oo muddo kooban jooga maalmo inaad Denmark ka dhici doonto 2 bilood wax ka yar gudahood marka sheekada halkaas aan ku hakinaynaa qaybta labaad gabadhii dhibanayd ee maskiinta ahayd ee rafaadsanayd ee cagaheeda us ka soo carartay ee xamar timid waxay noqon doontaa oo ay gali doontaa safar aysan ku talagelin oo aan u qorshaysnayn bishaas ay cararayso bisha ku xigta bisha ku sii xigta 2 bilood gudahoodna waxay tagi doontaa Denmark wax qorshaha ay ka lahayd haba yaraatee malaha barnaamijka qaybta saddexaad ay noo badal hadduu Allah awood ilo ogolaado waxay ahayd Xanaan Shidane oo barnaamijka marti noogu ahayd waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan wixii ra'yiga qaybta hoose commentiga ayaad noogu reebi kartaan nabadgala si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid